السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر مقال عصب مقال كان وحين كل فقرينا أو ما إنه كجاه لنا انترفيس كجود برنامج كان اللي رادو أدوب أديشن. أدوب أديشن سيدنا هروش إنه برنامج باورفول oo lagu talagalay in codadka iyo waxyaalaha la midka iyo muusiga iyo lagu habeeyo lagaga saaro jabaqda iyo codadka iyo dabeelaha iyo waxa ku jira marka la duubayo codadka raaca. tusaale adaa halkan cod ku duwanaysid qof dariskaaga ah ayaa qayliyay ama maganaysa shay ayaa meel ka soo dhacay sharqan sameeyay ama taleefankaaga ayaaba soo maarta qayliyayba marka codadkaas kale sida ugu reebi lahayd iyo u soo saari lahayd marka cod qurux badan oo dadku dhageystaan ama maartay dhagahooda maartay ay ku raaxaysanayaan inaad soo saarto barnaamijkan Adobe Audition waa barnaamij caan ah oo shirkad weyn oo la yiraahdo Adobe ay soo saarto barnaamijkan waxa isticmaala TV-yada idaacadaha FM-ka sidoo kale dadka soo saarayaasha ah oo kuwa muuqaalada soo saara kuwa codadka soo saara waxaas oo ma isticmaala waa free lacag laan weeye markaad internet ka raadinayso lacag laga qaadmaayo oo shirkadu hadda ma iibiso waxa ay soo haray marka interface-ka halkan barxadan weyn waxa la yiraahdaa waxa la dhahaa workspace barxadan weyn waxa la yiraahdaa workspace halkan waxa kaaga muuqda panel history la yiraahdo panelkan wuxuu sheegi doonaa waxyaalaha aad edit karayso sida video iyo codadka aad edit karayso sababta video inta halkan keento baad codkiisa edit karayn doontaa wax ka bedeli doontaa kadib ayaad wax u bedeli doontaa muuqaal daawan karo waxaad u rari doontaa barnaamij lama taana ah oo la yiraahdo Adobe Premiere Pro halkan waxa la yiraahdaa MIDI browser oo waxa kaaga imaanaya wixii aad ma garanaysaa halkan keenayso cod haday tahay iyo video haday tahay halkan ayaa imaan doonaa video halkan ka soo muuqan doona marka video keento laakiin layer-ka oo fariisanayo waa halkan marka sidaan hadda maartay inu sheegnay halkan waxa fariisan doona wixii yimaada halkan ayaa fariisan doona halkaas waxa ka muuqda laba icon labadaas icon waa marka aad rabtid inaad file u samaysato tusaale waxyaalaha aad edit karayso inaad file halkan computer dhexdiisa file ka dalbato si degdeg inaad file u samaysato hadda rabto halka ayaad click siinaysaa wuxuu ku diri doonaa computerka sidoo kale halkan haddaan click siino wuxuu ku leeyahay isla computerka ayuu ku diri doonaa meelo kala duwan ayuuna ku maartay diri doonaa sida inuu ku diro PC-ga iyo ma garanaysaa marka halkan waxa la yiraahdaa menu bar waxa ka imaan doona waxyaalaha maartay aad halkan ka weydo oo effect panel-ka kale waxyaalaha ka weydo iyo media browser-ka waxa ka weydo ayaa halkan imaan doona marka qaybtan sare waxa la yiraahdaa in niri menu bar waa qaybtaas waxaad ka dalban kartaa waxyaalaha ka maqan oo dhan tooliska effectiyada wax badan baad ka dalban kartaa halkaas qaybtan waxa loogu talagalay audio editing and video markaad video cod iyo video isku edit karaynayso dhexdooda ayaad klikiisanaysaa halkan wuxuu ku furi doonaa barxad cusub oo ku kala saari doonta muuqaalka iyo sida u jeedo way isbedeshay ma garanaysaa workspace-keeni ama barxadii weyneed halkan ahayd way isbedeshay default waa meeshan awal joognay oo waa position awal joognay sida aad markaa kliksina way isbedelaya qaybtan waxa loogu talagalay radio production dadka maarta soo saara idaacadaha codadkooda maarta laga dhageysto wararka laga dhageysto oo kale dadka soo saaro oo kale ayaa codadka ku edit karaya sida loogu talagalay sidaas weeyaan okay meeshaas ilkaas hadaynu furno waxa ka imaan doona waxyaalo badan simple editing oo kale iyo advanced iyo mixer oo kale iyo essential video iyo marka guud ahaan panelkan waxa la isku yiraahdaa essential sound baa la isku yiraahdaa maganaysaa panelkan guud marka sidaas ayuu wuxuu u yahay magaranaysaa barnaamijkooda socda oo codka nooc walba loo baahdo lagu edit karayn karo marka aad wax soo gelinayso laba istibaya oo soo gelin kartaa inaad shayga aad soo gelinayso halkan video-ga ama codka aad soo gelinayso aad ku soo daraagrayso si aad u soo daraagraynaya tusaale file-kan hoosan hadda soo furanayna videoyaal badan baa ku jira waxaan ka qaadan doonaa video-gan Pavilion Soomaaliya waxaan ku sii deyn doonaa meeshaas ayaan dhiganaa u fiirso halkan haddaan keeno meeshaas calaamad guduud ayuu dhigayaa macnaha meel loogu talagalay in la dhiga ma ahan waxa loogu talagalay halkaas in la dhigo u fiirso copy plus copy baa soo baxaysa oo halkaas ayuu ku kala saari doonaa codka iyo video ayuu kala saari doonaa marka halkan ma ogola
laakiin halkan wuu ogol yahay panelka dhan ayuu wuxuu ku wareejinayaa calaamad highlight ah taasoo muujinaysa ogolaansho in lagu ogolaaday halkan inaad dhigtid laakiin halkan hoose panelkan magaraysa effect rag ah haddaan rabno inaan dhigno ma uu yeelayo wuu kaa diidaya sidaa ujeedi marka halkaas ku sii deynaynaa okay halkan markaan kusii deyna waxaa dhacaya halkaas codkeena ayaa kasoo muuqan doona videogii weliba inoo highlight gareysaya markaan kaa furno ayaa videoga si automatic ah halkan hoose uga soo muuqan doona sababtoo ah halkan waxa lagu maartay calaamadiyay meeshii qaybta videoga qaybta historyga waxa lagu calaamadiyay meel video leeyahay ayaa lagu furo halkaas marka double click tiraado oo halka codka ka soo muuqdo barxadaas ayaa halkan waxa ka soo muuqan doona videoga aad codkiisa edit garanayso bal hadda aan double click siino sida aan ku sheegay xaggan hoose videoga ayaa ka soo muuqday halkan codka ayaa ka soo muuqday okay bal hadda codkaas in yara dhageysan okay sida u jeedid codkan hiidkan kacaya hiidkan dheer oo kacaya ma gaari doono calaamadda siirada sababta u gaarin waxa weeye si professional ayaa loo soo edit gareeyay ma uu gaari doono haddii halkan uu gaaro dhagaha dadka dhageysanaya wuu dhibayaa hadduu qofku xarig ku dhageysanayo xariga dhagaha headset oo kale ama bahalahan airpods oo kale ku dhageysanayo dhagihiisa ayuu dhibayaa sidaa darteed waxaa loogu talagalay inuusan -6 kaas kula dhaafin marka aan balan click siino waxaa maanta si rasmi ah u furmay Pavilion-ka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xariga ka jaray xarunta oo noqonaysa markii koowaad oo ay Soomaaliya goob u waa ka soo jeeda codkaas ma dhaafayo meeshaas loogu talagalay ma dhaafayo si qurux badan oo macaan ayuu dhageysanayaa qofka marka haddii aad tahay qof wax soo saar ah oo dadka barnaamijyo raba inuu la wadaago haddaad warar samayso haddaad qof dhiirigeliyo oo barnaamijyada dheer oo podcast waaweyn aad samayso waxaa khasab kugu ah inaad barnaamijkan isticmaasho khasab ayay kugu tahay sababta oo codkaaga waxaa doonaysaa inuu qanciyo dadka oo cod la dhageysan karo oo dadka u geysid sidaa darteed barnaamijkan wuxuu leeyahay runtii dee wax aan laga sheekayn karin oo quality uu leeyahay lagama sheekayn karo shaqooyinka aad ku qaban kartid oo codadka aad ku sameyn mixer baa ku sameyn kartaa codka uu ku bedeli kartaa maxaa la yiraahdaa dabaylaha oo ciyaalaha jabaqada waxaas oo dhan waad kaga saari kartaa marka waxaan dhihi karnaa dadku inay ka faa'iideystaan balkan waxay noqon lahayd fursad dadka soo saarayaasha waliba idaacadaha dadka jooga kale dadka barnaamijyada maarta soo duubo kale runtii aad ayuu muhiim ugu yahay qaybtan waxaynu ku baranay marka interface-ka guud iyo qaabkii magaranaysaa su'aal baa ka soo noqota dad baa luuqa waxay nagu soo direen Adobe Audition maxaa loo isticmaalaa muxuu yahay marka si guud waxaan u maleynayaa inaan faahfaahinay muuqaalkan haddii ku cajab geliyay like saar share gare comment waxaan rajeynaynaa inaad na taageerto. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.